qiyaas inaad ku jirto markab dhex socda biyaha Sterenburg ee Bayer. Biyaha buluuga ah iyo buuraha madow oo aad ka arkayso meel fog. Dabayshuna ay wajigaaga qaboojinayso. Maalintaas in ka badan 11 qoys oo Soomaali ah ku nool magaalada Motion ayaa isku raacay safar xiiso leh. maanta isku soo mar way mood ma kaasha ya waa Qatar Soomaa caruurta ayaa qosol ay ciyaar ku mashquulsan halka waalidiintoodna ay sheeko iyo xusuus farxad leh ku wadaagayaan. dadka dalxiiska sameeyo fahamka aadi waddankan waxaan joogaa 12 sano waxaan jooga muxuu waxaa jir meelo badan aan tagin waxa kamid ah Sterenburg oo maanta ay tahay maalintii ugu horeysay meesha hadda aan taaganahay tirin wiliga ma imaateen ma aan imaan maanta waa maalintii ugu horeysay halkaan imaan aadi marka aad ugu faraxsan rahantii inaan maanta markab saarnaado dhalinyaro Soomaali si ay waabulaan familada ama qoysas Soomaali isku keenaan caruur badan ka kooban ilaa 60 isku dar marka la yiraahdo xisaabta mas'uuliyadaas ay qaadaan marka wax aad loogu farxo. Markabka weyn ee Sterenburg ayaa noqday goob ay qoysasku isku arkaan iyadoo wajiyadooda ka muuqatay farxad iyo wadajir. waa markii ugu horeysay sidan oo kala ah loo qabto safar qoysas badan ay wadaagaan ayuu yiri Cabdifataax Cali Xabeeb oo ah gudoomiyaha Sud Somali Farayn isagoo ku tilmaamay tan inay tahay taariikh weyn. oh my god maanta waa maalin oo qaas ah noo tahay aad ugu faraxsanahay in aan joogno Sterenburg markabkan aan raacno ujeedadii barnaamijkana bulshada ciyaar gashay ah in caruurtaas isu keeno oo aan deegsano oo maaragtay fakasigan unta gaslishe runda la dhahaa jiro inuu hilmaami doonin ay ka shaqeyn doonaan insha Allah sidoo barnaamijka imisa ka shaqeynaysa neo ururkan waxaan aasaasnay 2020kii oo hadda laga joogo 5 sanadood intaas geedi socodka barnaamijka ayaan ku guda jirnay hadafkeenu waa in aan soo saarno bulsho ka badbaado xagarta iyo mushkiladda dalkan iyo kriminaalada kiisas kriminaal ah isla markaasna noqoto kuwa maanta safarku ma ahayn oo kaliya dalxiis ee wuxuu ahaa waayo aragnimo qoys iyo bulsho isku xiray.